شيء dadku keenay dalaala doonayno dayaciyo dalabaabi dadka yaga oo horseeda doonayno dayaciyo dalabaabi dadka yaga oo horseeda doonayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij yar oo kooban oo aanu ku falanqayn doono hogaaminta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi falanqayntaasi oo salka ku haysa arrin maalmihii ugu dambeysay aad u soo shaac baxday oo dul haawanaysay madaxweynaha Soomaaliland arrintaasi oo ku saabsanayd in qoyska madaxweynaha Soomaaliland tan iyo markii uu xilka qabtay iyo shacabweynaha xaruuriga ee Soomaaliland uu ka dhaxeeyo muran beeraha iyo baloodhada banaana barnaamijka waxaan ku falanqayn doonaa oo igu martiya Khadar Maxamed Ismaaciil Khadar Dhambaal oo awriye madax bannaan inta badanna ka howlgala Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa xogogaalna oo ah hogaaminta Soomaaliland sidoo kale waxa igu martiya Khadar sida Cabdirasaaq Axmed Aadan oo isaguna ah hal abuur daayir ahna suxufi madax bannaan isaguna xogogaal u ah hogaaminta iyo waliba qaabka madaxweyne Biixi labadiisina xilka hayay uu wuxuu hogaaminayay Khadar markii hore uu soo dhaweynayaa sidoo kale Cabdirasaaq Axmed Aadan adna soo dhawow aad baad mahadsantihiin Khadar maalmihii ugu dambeeyay waxa aad u soo shacbaxday haddii aan marka hore adiga kugu bilaabo in madaxweynaha Soomaaliland iyo shacabweynaha uu majaraa u hayo uu ka dhaxeeyo muran xagga dhulka ah arrintaasi adigu sidaad u aragtaa Khadar nimcaan aad baan kuugu mahadcelinayaa adiga iyo barnaamijkaad nagu soo casuuntayba warantaayo madaxweynaha dooyinkii dambeysay waxa jirtay hadal hayn badan oo ku aadan in isaga iyo qoyskiisu ay dad dhulusku haystaan laba mid bay noqon kartaayo in wixii ku abtirsadayeen jufadu madaxweynuhu ka soo jeedo dhan la yiraahdo madaxweynaha dibadda ka riixaya iyo mid isagu si gaar ah dibadda uga riixaya way noqon kartaa inkastoo labadaba kala cadeyn oo la oran karin waa jufada oo dhameystiran iyo waa in gaar ah madaxweynaha inta u dhowdhowe eheladiisa taasi waxay dhalisay muran iyo saad sheegtay hadal hayn badan waana ta loo baahan yahay in xalkeedii la gaadho oo madaxweynaha iyo cid kasta khusayso ay arrinka ka gungaadho ilaa haddana waxaa cad markaan xog ururin samaynay la xidhiidhnay dadkii allahumma salli calaa maxamed dadkan sheeganaya dhulka lagu hayo waxay sheegayaan inaanay wax jawaabi ka soo baxayn maamulkii aan ahayn damaca dhulka ku jira ay kaga jira mooyaan marka taas waxaan arkaa wax sii jiitami kara in muddo haddaan isbedel degdegi aanu iman inkastoo imika koronu aamusiiyey aan waxaan filaya inay sii socon karto aad iyo aad baad mahadsan tahay Khadar Cabdirasaaq adigana haddii aan ku weydiiyo su-aasha Khadar tulamid ah madaxweynaha Soomaaliland tan iyo markii uu majaraha u qabtay shacabweynaha Soomaaliland waxaa soo baxaysay ama soo shacbaxday in qoyskiisu uu runtii weerar ku hayo beeraha iyo baloodhada shacabka Soomaaliland arrintaas hadii kula muuqata Cabdirasaaq horta aad iyo aad baad mahadsan tahay nimcaan barnaamijka nagu soo casuumtay anigu aragti ahaantayda madaxweynaha ogaalkayga waa madaxweynihii ugu horreeyay intii Soomaaliland jirtay ay dad shacab ah dhul isku qabtaan runtii arrintaasi aan waxaan u arkaa arrin sumcad darro ah guud ahaanba madaxweynaha iyo qoyskiisa hadiiba ay jirto sidaa magaranaysaa ay shacabku ku cabanayaan inay leeyihiin madaxweynuhu dhul buu naga qaadayna inay tahay arrin guud ahaanba Soomaaliland iyo madaxdeedaba sumcad xumo ku ah madaxweynahana waxaan ka rajaynayaa in arrintaas haddii wax ka jiraan si degdeg ah wax uga qaban doono ama uu ka tanaasuli doono de aad iyo aad baad markaa mahadsantahay haddii aan Khadar ku soo celiyo madaxweynuhu ilaa iyo hadda kama hadal arrintaasi dadkuna waxay ku tuhmayaan inuu madaxweynuhu dabada ka riixayo ama uu ku raacsan yahay in qoyskiisu uu si toosa ama bareera uu u weeraro baloodhada iyo beeraha bannaan madaxweynuhu aamusnaanta uu ka aamusay ma la oran karaa uu ku raacsan yahay oo mahadsantiin macaanow dhowr qodob bay noqon kartaa marka dhinacyada laga eego ama angalis laga eego mid bay noqon kartaayo warbaahinta intaa soo tabinaysa wararkani ma sameyn xog ururin may sameyn documentary may sameyn xog ay ku ogaanayso xaqiiqada jirta iyo cidda hawsha wada waa talabaade dadka cabanaya la dhul buu nagu haystaa qoyska madaxweynuhu ma oranayaan waxaan ugu haystaa hebel iyo hebel qoyska madaxweynaha oranayaan taasina ma sheegi karto oo ma oran karto madaxweynaha dhul dad ku haysta waxay noqon kartaa jufo dhan waxay noqon kartaa cid gaara waxay noqon kartaa cid ay madaxweynaha isgaranayaan marka taasaa caddaysay haddii sheekadu caddahay oo aanba warbaahin si cad u soo bandhigto xagga sirtu ka qurantay ama dadkan ay si caadi ah u yiraahdaan qolada hebel ba waxaan ugu haystaa
waxa noqon lahaa wax cid ku cad laakiin qoyska madaxweyne muuse markaan anu idhaahdo ee aadna aad tira qoyska madaxweyne muuse aan ugu haysta dhul kaasina waa madaxweyne muuse qoyskiisa dhul ugu haysta sheekadu waxa weeyaan waa isla meeraysi weyn noqonaysa marka hadal la'aanta keentay waxa weeyaan waa sheekadii aan caddayn taasana nu arka aad iyo aad baasatay khadar cabdirasaaq su-aal taa la mida ama ku dhadhow haddii aan ku weydiiyo madaxweynuhu tan iyo markii uu xilka qabtay ayay soo shaacbaxday arrintani ma la odhan karaa shaadhka madaxweynaha ayaa lagu adeegsanayaa oo awood madaxweyne ayaa lagu soo gabanayaa ama ma la odhan karaa madaxweynuhu arrintan isaga laftirkiisaaba ku raacsan maadaamaanu ilaa hadda ka hadal arrintaasi ama aanu soo qaadinba nimcaan aad baad mahadsantahay horta ma caddayn karno in madaxweynuhu arrintan ku raacsan yahay qoyskiisa iyo inuunu ku raacsanayn madaxweynuhu waa mas-uulkii ugu sarreeyey qarankeenna waa hogaankii dalka arrintaasina sidaanu aan filayay waxbaa ka jira sida madaxweynaha iyo qoyskiisu dhulka isugu haystaan kolley wuxuun baa ka jira laakiin arrintaas waxay u baahan tahay arrin in la caddeeyo oo dabagal lagu sameeyo halkay sirtu ka quruntay aanba wax ka jiraanna runtii kamarada lagu qabto oo bulshada la tuso aniga sidaan ila tahay madaxweynuhu haddii arrintaasi wax ka og yahayna oo sidaa dhulka dee magaranaysa masaakiintu ay sheegayaan leeyahay madaxweynaha qoyskiisa wax nagu qabsadayna inuu madaxweynuhu aanba bariis ka yeelo yidhahdo anu arrintaasi wax alla waxaan lugan ku leeyahay ma jirto haddii ay wax jiraanna de magaranaysa yidhahdo dhulka anaga lahaa xaq baan u leeyahay faylashii iyo cadaymii u lahaana dee bulshada usoo bandhigo taasun bay ila tahay taxalka lagu gaari karaa aniga aad iyo aad baad mahadsan tahay khadar maxamed ismaaciil khadar dhambaal waxaad tahay wariye madax bannaan inta badanna xogagaal baad u tahay waxa waddanka ka dhacaya arrintaasi dhulkee aadka usoo shaacbaxday haddii aan dib ugu noqonno ama aynu ku dhex jirnaba dhulkan khadarow runtii anigu waan arkay adiguna kolley warbixinaad ka soo diyaarisay warar badan baad ka soo diyaarisay sawiraad ka haysaa dhulkan in ka badan 30 guri baa ka dhisan oo sharci lagu dhisay oo ay dowladda hoose sharcigii u soo saartay seesas baa jira dhulka inta bannaan u yaryahay haddana inta la xeertay runtii dhismay u badan tahay ma la odhan karaa waa awood uu madaxweynuhuba dee lagu xisaabtamayn awooddiisa lagu xeeranayo dhismaha intaa leega 30 guri gaadhaya dowladda hoose laftirkeedu arrintaasi kama hadal markii ay sharciga dhismaha soo saaraysay ma la odhan karaa ilaa dowladdii hoose ilaa sharcigii ilaa iyo waxanba qoyska madaxweynaha gacanta ku wada haysto shaarkii madaxweynaha ku adeegsanaya oo dadka masaakiinta boobaya aad u mahadsantahay inuu runtaa xogo badan baanu ka baahinay warar badan ma ka baahinay laakiin weli xaqiiqadu tahay looguma dhaadhicin gunta tameesha taalana xawayaan waa dayac dowladda hoose ka muuqda ta dadka kala guri lahayd kala fardaamin lahayd waa dowladda hoose iminka dhulkan iyo guryahan aad sheegayso ee muran ka taagan waa dad ay u dhistay dowladda hoose oo galaasho siisay haddana ay ka qaaday taa iminka ilaa hadda muhimil ku jiraan waxa weeyaan dowladda hoose dadka ka qaadaysa mise qoyska madaxweynaha la sheegaya ka qaadaya mise hawl kale meesha ka jirta ta markaa u baahan in diiradda la saaray waxa weeyaan dowladda hoose see loo dhaqantaa dadka ay dhulka ka iibinayso ama ay siinayso ogolaasho guri marka sirta iminka warbaahin baan noogu nahay waxaanu baahinaa saad sheegtayba wararka dad cabanayaanu sii daynay oo tviyada ku daawatay haddii aad sheekada u gun dhacdo waxay noqonaysaa sheeko qabiil iyo sheeko qoys iyo sheeko xaafad taasina markasta waxay kugu kalifaysaa inaad sheekada dul marto haddaad dul martana waa tanoo sheekadu waa isdul taalaayo dowladdii hoose waa laga cabanayaa madaxweynihii waa laga cabanayaa qoyskiis waa la cabanayaa dadkii cabanaya laga cabanaya xitaa iyaga laftirkooda markaa sheekadu waxay ku ficnaanay dowladda hoose oo marka hore inta dhalisha la siiyo iyadoo kala saarta qoyska muuse iyo dadka bal cidda qaldan taasay la muuqata aad iyo aad baad mahadsantahay khadar cabdirasaaq axmed aadan sidoo kale marka saxaafadda laga imaado waa hal abuur ilaahay ku manaystay inuu kolba xaaladda taagan uu wax ka alifo cabdirasaaq inagoo soo koobinaa wakhtigana dhowranaa balmaansadan aad soo samaysay magaceeda adigoo ku bilaabaya iyo xaaladaad ka tirisay iyo bal siday wax u jiraan dadka u yara fasir aad baad mahadsan tahay nimcaan kulley tixdan waa tix yaroo iska kooban waxaan ugu talagaloon waktigii dhaliiluhu aad madaxweynaha loo dhaliilayey weliba ay dhaliilayeen dadka ay si la sheegay dhulka isku hayaan dad waxaa caaban jiray hooyooyina oo magaranaysaa dad waaweyna marka dhaliishaasi madaxweynaha loo jeedinayay dhulka ay isku haystaan uma tixdan yan ku cabiray marka waxay ku bilaabmaysaa murugadu maciil baa
murankuna ma buuq baa madaxnima ma adiga muruquna ma xoog baa maatida maxaa dhibay miidhiya maxaa tumay marwadii xishoodkiyo asluubtaba u maganhayd sowtaa miciinlee ku muusootay ee tidhi madaxweynahaygow magan baan ku bidaye marna kaama filanayn mid balloodhankii galay maaraynta qarankiyo horumarinta maatida muuse waa u roon yahay haydaysa maantaba maamadii waxay tidhi waxaan silic mar soo maray waxa iiga murug badan mulkigaygan xooggiyo muruq lay adeegsaday inta magaxxumaan iyo xaajadu murgacan tahay masaakiintu dhibban tahay mudanuhu halyey yahay muuse macangaguu yahay walee meel ma gaadhno mugdi baan ku sugannahay markaa watixdaa kooban waxay ka hadlaysaa un dhibaatooyinkaasi ka soo ifbaxaya dhulka isku haystaan madaxweynaha iyo qoyskiisu iyo dadka masaakiinta anigoo cabiraya kulley halaburka waxa la yidhaahdaa waa afhayeenka bulshada anigoo cabiraya taasi oo bulshadaasi danyartaa afkooga ku hadlaya ayuu mantixdan ugu talagalay bal in madaxweynaha gaadho haddii arrintaas ay wax ka jirtana dee madaxweynuhu uu iska beri yeelo aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdirasaaq axmed aadan sidoo kale cabdirasaaq marka saxaafadda laga yimaado waa hal abuur marbaa wax ka alifa xaaladda meesha kolba xaaladda taagan khadar maxamed ismaaciil khadar dhambaal waxaad tahay wariye madax bannaan inta badan waxaad u doodaa shacabka dulman ee masaakiinta ah inta badanna dadku waxay kaa daawadaan inaad kolba xaaladda jirta aad warbixina ka diyaarso arrintaasi madaxweynaha qoyskiisu iyagoo adeegsanaya shaarka madaxweynaha ay tan iyo markii uu madaxweynuhu majaraha qabtay ay weerar ku hayaan balloodhadii iyo beerihii bannaanaa ee shacabka masaakiinta arrintaasi adigu wax ma ka diyaarisay se ma ku tala jirtaa haddii aanad hore uga diyaarin inaad iminka ka diyaariso horta waa mahadsanti dhimcaano waxaa jira warbixino badan oo ku aadan dadka cabanaya habka u cabanayaan waxay ka cabanayaan iyo waxay tabanayaan annagu waxaanu nahay tabiyaal waxay tabanayaan badi waanu tabinay saan filan in ciddii ka cabanay way gaadhay ciddii ka cabanaysa laftirkooda waan isku daynaa inaan wax ka ogaano laakiin ciddii ka cabanaysa markay ballaadhato saan kuu sheegaya noqoto dowladda hoose madaxweynihii qoyskiisii waxay noqonaysaa sheeko dheer mar kalena waa ninka kuu sheegaya kule sheekada markaad u gundhacdo qabiil iyo qoys iyo xaafad bay noqotaa oo waxay noqotaa waynu iska naqaanaa inagu aad ba qabyaaladda u naqaanaa oo laftirkaagaa lagu oranayaa howl kalaad wade waana tahay naga hortaagan in sida caalamka aynu shaqayno oo aynu xog raadino oo qofkan dembiilaha iyo ka laga cabanayo iyo ka cabanayo aynan xog rasmiya ugu daadhicin aynu dusha ka wadno taas horta waa kow midda kalena u baahna waxweyaaniyo qorshaha annagu inoogu jirta suxufi kastana waxaan jecel oo madax bannaana inoogu jirto inuu ogaado xaqiiqada say u jirto iyo cidda cabanaysa wax ka cabanaysa iyo cidda laga cabanayo taas waa mid aan wadnay oo intii karaankayga aanu gudbinay inta soo socotana insha allah aan ku tira jirnay inaan wadno aad iyo aad baad madsantay khadar cabdirasaaq haddii adigoo soo koobaya adigu wax tawariye madax bannaan adigii khadarba magaaladii baad ku jirtaan xogagaal baad tihiin tan iyo markii uu madaxweyne biixi talada qabtay wadankii waxaad moodaa inuu dib u dhac badan ku yimid meel walbana waxaa lagaga sheekeynayaa in madaxweynihii wax laga filanayay inuu masaakiinta wax u taro isagii laga baqayaba dib u dhacaa wadanka ku yimid iyo intii uu madaxweynuhu wadankaya adiga maxaa kaaga ifay iyo dowladihii hore ee somalilan ka jiray runtii intii maanta madaxweyne muuse xukunka hayay waxoogaa cabashi way jiraan haddii ay noqoto xagga waxqabadka lafteedana madaxweynuhu waxa lagu dhaliilaa inuunu sidii laga filayay inuunu wax u qaban uu kambeynka u galay marka anu waxaan aaminsanahay madaxweynuhu waqti uu wax ku soco u haysta oo 2 sano iyo xoogaa buu iminka xilka hayay 2 sano iyo barhka kale u hadhay hadduu inuu isku dayo inuu wax soco wuu sixi karayaa baloodhada haddii aan usoo noqdo anuu dhowr jeer waan buuqday goobaha khilaafaadku ka taagan yahay dadka masaakiinta ay isku hayaan madaxweynaha qoyskiisu runtii arrintaasi waxay u baahan tahay dhinaca sharciga in laga eego qolo kastaaba waxay leedahay waxbaan haysanaa sharciya oo caddayn noo ah oo aanu annagu dhulkan ku leenahay qolada kale ay isku hayaan ee madaxweynaha qoyskiisuna saasoo kale ayay leedahay marka in sharciga laysla tago oo inagu sharci ma nihin in sharciga laysla tago sharcigu kala saaro ayuunbaa habboon oo sharciga loo maro haddii arrintaasi ma garanaysaa sida ay kusii socotana waxaan aaminsanahay qaranka somalilan inay sumcad xumo u tahay iyo guud ahaanba bulshada sharafta leh somalilan madaxweynaha iyo qoyskiisuna runtii ay barmadow ku reebi doonto oo ku taalla ay noqon doonto marka waxaan rajaynayaa in arrintaasi si degdega
insha allah u dhammaan doonto. aad iyo aad baad madsantay cabdirasaaq. khadarow su-aashii u dambeysay haddii aan ku weydiiyo somalilan taariikhda arriminteeda waxaa isaga kala dambeeyey 5 dowladood. madaxweyne muuse biixi baa ku noqonaya madaxweynihii 5aad. waa markii ugu horreysay taariikhda ee madaxweyne iyo shacabkii uu hogaaminayey ay ku murmaan balloodho iyo beero. intaa ay somalilan jirtay qoys madaxweyne biixi ka midii weli muu sheegan beeraha iyo buuraha ay hadda sheeganayaan. markii uu majaraha u qabtay shacabka somalilan ayay arrintani soo shaacbaxday. ma la odhan karaa madaxtinimada iyo shaarka madaxweynaha iyo awoodda dowladnimo ayay kaga faa'iidaysanayaan qoyska madaxweynuhu inuu intaa uu xilka hayo ay waxay ka qabsan kareen ay ka qabsadaan. adiga kolley waxaa tahay saxafi waayo araga inta badanna bulshada ku dhex jira arrintaasi iyada maxaa kaaga ifay? waad mahadsan tahay. waa runtaayoo somalilan waxaa xilalkeeda iskaga dambeeyey madaxweyneyaal kala duwan waana kii 5aad. horta madaxweyne kastaana dhaliil iyo dhaleecayn waa lahaa, ha kala duwanaadaan ha kala xumaadaan. waa madaxweynihii ugu horreeyey ee isaga iyo qoyskiisa si gaara loogu farta loogu fiiqo dhinaca dhulalka. horena waad usoo xustay. laakiin taa anagu haddaynu warbaahintanay horta dee ma xukumi karno oo ma oran karno madaxweynaha iyo qoyskooda si bareera ayay wax u qaadanayaan. inageenan xagga wada joognaana dhammaanteen ma xukumi karno. laakiin cabashada dadka waxbaa ka jira waynu oran karnaa. inaguna waxay nahay dad wax gudbiya. for example qof cabanaya ayaan cabashadiisa u gudbinaa qof kale aynu gaarsiinaa. qofkaa xukunka iyo wixii kasoo dhacaa dad tabiye weyna. markaynu eegno dhawaaqyada dhiilada le kasoo yeedhaya dadka danyartaa wax mahaysatada ee hantidoodii sheeganayaan lagu hayo, waxay noqon kartaa horta caqabad taagan oo somalilan waqti xaadirkani hortaagan. waana midda loo baahan yahay in hoos loo eego. haddii taas sii socotana de sidaad sheegayso waxaa caddaan doonta in qof kastaba u idhaahdo sharcigii gacanta lagu qaatay, dowladnimo lama haysto, madaxweynaha iyo qoyskiisu intay xilka hayaan bay urursanayaan. marka wax kasta waxaa la ogaan karaa markay sii jiitanto hawshan amaba ay dhammaato ayay xalkeeda ugu dambaysa. laakiin waqti xaadirkeedna kuma go-aamin karo oo ma oran karo khadar ahaan madaxweynuhu wuxuu sameeya tacadi noocaas. laakiin waan tabin karaa in tacadi laga cabanayo. ninka hadda kuu sheegaya kule dad dan yaraa cabanaya, dhul baa la isku haystaa. way noqon kartaa hadalkooda run oo madaxweynaha qoyskiisa way isku qabsan karaan. qaladna way noqon kartaa oo dowladdii hoose iyo maadaama systemkii lagu maamulaya howlahani uu liito arrin kalena way noqon kartaa. marka ani aragti ahaan waxay la muuqataan hadalka soo koobaya inaan waqti xaadirkan aan cabiri karin waxba, laakiin bal ay noqon karno dad ka warsuga xagga xaal ku dambeeyo. waxaana kala saari doona ha iyo mayada waqtiga soo socda. aad iyo aad baad mahadsantahay khadar. daawadayaal intaasi waxaanu ku soo afmeeraynaa barnaamij dood gaaban oo aanu ku falanqaynaynay arrin maalmihii ugu dambeysay aada u soo shaacbaxday. arrintaasi oo salka ku haysa intan iyo markii uu majaraha u qabtay madaxweynaha somalilan, shacab weynaha xaruuriga ee somalilan ay aada u soo ifbaxday in qoyska madaxweynaha iyo shacabka reer somalilan ay ku murmayaan beeraha iyo balloodhada. doodani waxay la falanqaynayey cabdirasaaq axmed aadan oo ah mas-uul saxaafadeed ahna wariye madax bannaan oo ka howlgala caasimadda somalilan, iyo khadar maxamed ismaaciil khadar dhambaal. sidoo kale cabdirasaaq waa hal abuur mar walba wax ka alifa kolba xaalaadka taagan. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa khadar maxamed ismaaciil khadar dhambaal wakhtiga aad noo soo hortay. cabdirasaaq sidoo kale aad baan kugu mahad celinayaa. intaasi waxaanu kusoo gebagabanaynaa barnaamijkii aan ku falanqaynayay arrintaasi. waxaan idinla socodsiinaya anigoo nimcaan awfaasa. intaynu ku kulmayno barnaamijkan barnaamij la mid a waxaanu dhammaantayd kaga tegaynaa asalaamullaahi calaykum, ramadaan kariim.